salaadiinta xuqaashaya waxgaradka ka soo jeeda gobolka Hawd iyo degmada Axmed Dhagax oo maanta warbaahinta kula hadlayay hotel Harwanaag ee magaalada Hargeysa ayaa waxay dhaliilo u soo jeediyeen mas'uuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa gaar ahaan waxay maayirka caasimadda Hargeysa ku dhaliileen cashuuro dheeriya oo uu ku soo rogay gaadiidleyda u kala gooshta gobolada dalka sidoo kalena waxay mas'uuliyiinta dawladda dhexe ka codsadeen in ay si degdeg ah arrintaasi u soo farageliyaan. shirkadu waa ganacsi soo saar bay dalka keentay ballaaran oo ilaa xada oo kay Djibouti iyo ka wadi jirtay dibadda kale ka wadi jirtay ku soo wareejisay Soomaaliya oran meel Axmed Dhagax ku koobmeen gobolka Hawd ku koobmeen dalka shirkadani waxbay keentay hanti bay gelisay wax soo saar bay samaysay dhaqaalaha ka soo baxa dawladda cashuurta dalka ugu ballaaran bay bixisay wax uga doonaynaa SBI taadiga ay ku sameeyaan inay ka daan wax ka qabtaan waayo gaariga 20 ku laga qaadi jiray war milyan iyo 500 ama milyan 300 ban cashuur xaqu ka keenay awood inta le golo deegaano kasta oo markuu yiraahdo kambanigii wadanka u weynaa baan taariifadu sameeynaa oo anaguna waxaan ka doonaynaa waa fariin loo diray baan leeyahay shirkadaha dambe ee wadanka maal gashan waxaan leenahay xukuumaddu arrintaas soo farageliso oo waxa ka qabato golaha deegaanka iyada maamusho dawladda hoose golaha deegaanku inuu kambani inta leego 20 milyan dalka ka galeen inuu hantidiisu 20 cisho waxa yarnaato oo baabuurtii taayiradu ku balaadhaan kaantarorada waa waxaan meesha qabanaynin waxaan maaha wax la qaadi karayo in 10 jeer ama 100 jeer in ka badan la libin laabo wax la qaadi karayo wax la yeeliyo toona maaha waa waantaan hawo hogaansamaan haday waa waanta ku dhamaan weydo adeer way ka sii xumaanaysaa solseeka waxaan leeyahay ha noqonin koran beena uu guuxaruna uu dhuuso kaas waa solseeko midna dawladdan leeyahay baasha reeriyaan lagu celina arrinka halkuu leeyahay wasiirka daaqiliga haduu yahay xukuumadda sare haday tahay cid ka soo huseeya arrinka ha ka hawlgalo arrinka wax wanaagsan oo la isku afkarto oo macquula oo sawir cashuureed leh ha loo soo dhigo runta in la isu sheegaa loo baahan yahay waxa kale oo laga maarmaan biyo kama dhibcaana waxaan wadanka hore dadka loogu cashuur jirin oo aan inoogu oolin wixii hore oo aan lagu shaqayn jirin inuu intu gurigiisa ka soo tooso oo hebel oo lacag tira yiraahdo waxaanu aqbalayna ma aha ayaa waxaanu ka caawinaa muddo 5 sanadood ayaan barkada u shaqeynayno 30 kubana laga qaadi jiray waaba ka yarad markii hore cashuur ma xaq xashiish baa la halkan nimanka leeyahay cashuur ma xaq xashiish 30 kubana laga qaadi jiray 6 baa la yiri milyan iyo 250 gaariga shaambowga ahaa maanta gaadiidka ayaa la taayiro ku balaadeen wixii kale camal laayin lama duna qoladii yaraayay waxaanu qoladii jabka hore soo maray leenahay hadii sidina laga dawayo anaga dawladda waxaanu horta camalna siisaadeen gaadiideenay isku soo wada duuba wax maalmihii u dambeeyay iska soo daba dhacayay cabashooyinka kala duwan ee bulshada qaybaheedii kala duwan ee ay soo jeedinayeen dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa waa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Germany Bulsha TV Hargeysa.